نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اما بعد marka hore ilaahay ma iska leh annagoo caafimaad qabna halkaan iskaan keenay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bisha barakaysan ee soo socoto Ramadaan inuu qaarkeedana waafajiyo si amaan ahna aan ku galno haduu ilaahay yiraahdo. inta kadib waxaan u hambalyeeynaa ardayda qalin jibinaysa waalidiinta dhashay ee ku soo dadaashay iyo macallimiinta soo garab istaagtay maamulka iyo macallimiinta Hormuud Institute of Scientific Subjects and Languages. dabcan kelmadahayga saddex kelmad aan ku soo koobaya midda koowaad oo ah inaan u hambalyeeyo waalidiintii iyo ardaydii xafladdan qabsatay qaybaha kala duwan ka qalin jibinaysa. dabcan canaawinta ay ka qalin jibiyeen mid walba midda kale way ka sii muhiimsan tahay. waayo xilliga hadda aan ku jirno waa xilligii kombiyuutarka ama tiknoolajiyadda lagu shaqaysanayo. sidoo kale qof aanan fagaara ka hadalka aqooninna xaqiisa ma soo dhacsan karo oo aanan lahayn aqoontii uu lahaa qaabka uu ku soo gudbin lahaa. qofka aqoonta lehna iyo qofka aan aqoonta lahayn waxaa lagu kala garan karaa hadba siduu wax u soo gudbinayo. sidoo kale ardayda ka qalin jibinaysa caafimaadka iyagana waan u hambalyeynayaa waayo magaaladan waxaa soo martay xilli qof duraahi xaafadiiba hal qof uu ka joogay. haddana alxamdulilah xaafad kasta waxaa jooga qof duri kara ama gargaar degdega u fidin kara. waa taas waa ugu hambalyeynayaa. sidoo kale luqadda Englishka ayadana hadda waxay noqotay luqadaha waxyaabaha soo saarka leh ee lagu soo qoro hadday tahay tiknoolajiyadda hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii waxay ku qoran yihiin luqadda Englishka. waayo luqadda Englishka ardayga kaliya ma aha xitaa inuu barto isla waalidiinta naftirkooda waa inay luqadda bartaan waayo daawooyinka qaarkood waxaa ku qoran luqadda Englishka. haddii hooyada aysan aqoonin ilmaheedii si qaldan ay u siinaysaa. hadda gobolada dhexe ama gobolada dhahno South Soomaaliya qiso waxaa ka dhacday hooyo ilmaheedii inta habeen saddex anug qufac la soo tooseen ayay rabtay inay daawo siiso. waa saq dhexe farmashi u dhawaayay tagtay waxay dhahday daawada qufac joojinta rabaa sharoobaa la soo siiyey. guriga markay kaysatay ilmihii sharoobada xoogaa qaraaray ahayd caanay ugu dartay caanay u qastay ilmihii ku qayaantay sokoray ugu dartay iyo caano iyo sharoobadii waa sharoobada qufac joojinta way siisay quficii ka joogsaday way seexdeen subaxii hal ma soo tooseen saddexdoodii way dhinteen. markii la baaray waxaa la ogaaday caanaha iyo daawadan marka la isku daro inay sun noqonayaan. kiimikada caanaha ku jiro iyo kiimikada ku jira daawadan waa sharoobada qufaca magaceeda hadda ma garanayo dhaqaatiirtu way joogaan. daawooyin marka waxaa jiro aanan lagu dari karin shaaha ama caanaha qaar xitaa biyaha lagu dari karin qaar cunada ka hor la cuno qaar cunada kadib qaar adoo cuno aan cuni karin waxyaabahaas oo dhan leafletka ama warqadda ay ku qoran tahay. haddii hooyada marka ay garan lahayd luqadda Englishka ama sida wax loo akhriyo bisabab in ilmaheedu ku badbaadi lahaayeen. qodobka saddexaad ee aan rabo inaan xafladdan uga faa'iideysto waxay tahay ardayda. dabcan ardayda haddaad tahay xilliga hadda lagu jiro xilli qof kastaahi uu go'aanka mustaqbalkiisa ka gaaraya la joogaa. xilli waxaa la soo maray ilmaha dugsiga la geeyo xilli iskuulaadka la geeyo waayo markaas baahiyihii jiray iyo dadka tayadoodii iyo waaqiciga isku jaan qaadsanaa. had tusaale 20 sano ka hor qofkii lacag u baahdo oo canuga ama 12 jir ama 10 jir 1,000 shilin ama 500 oo shilin Soomaaliya la siin jiray. hadda canuga 5 jirka ah $3 iyo tuuro ku leeyahay. yani waaqiciga hadda la joogo wuu isbedelay. marka waalidiinta idin dhaleen
in aad ka ducaysataan waxyaabo fara badan ayay idin fududaynaysaa waxyaabaha hadda lagu qeylinaayo oo ama wanaaga ayaa biri wax ku tari doono in waalidiinta aad ka ducaysataan waalidiinta abaarin u noqotaan kelmado badan iyo waxyaabaha iga dambeyn doona hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay hambalyo ardayda qalin jabinayso Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.